Hadda ka hor dalka Masar magaalo ka mid ah waxaa ka talin jiray nin boqor ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dibadda u soo baxday inan uu dhalay boqorka. Iyadoo maraysa bartamaha magaalada ayaa waxaa ka faniinay faraantigeeda faskiisa ama ukunta yar ee ku dhex jirta fargalka. Durbadiiba waxaa liqay diiq meesha joogay. Isla mar ahaantaana waxaa arkayay nin lagu magacaabo Aw Aadan, waana ninka ay qisada ku socoto. Aw Aadan waa uu soo baxay wuxuuna aaday gurigiisa. Dhanka kale boqorkii markii loo sheegay in gabadhiisa fargalkeeda faskiisa la waayay, wuxuu isugu yeeray wixii faalalow ahaa. Waxay bilaabeen inay faalkooda wax ku raadiyaan. Dhanka kale Aw Aadan warkii ayuu maqlay in fargalka faskiisa la raadinayo, wuxuuna islaantiisa u sheegay inuu arkayay faska markii uu diiqu liqayay. Islaan imtixaan ayuu qabaye waxay ku dhahday war orodoo tag oo waxaad dhahdaa aniga faaliye ah oo soo saaraya faska. Wuuna ka diiday. Markii ay ku celcelisay kadib ayuu ka aqbalay. Kadib Aw Aadan wuxuu aaday boqorka xaggiisii. Markii ay faaliyaashii ay waxba soo saari waayeen ayuu dhahay aniga faaliye ah oo sheegaya halka uu faski yaallo. Aw Aadan faalkii beenta ah ayuu bilaabay, wuxuuna dhahay diiqa nuucaas ah la ii keeno. Mid ayaa loo keenay ma ahan ayuu dhahay. Mid kale ayaa loo keenay ma ahan ayuu haddana dhahay. Markii dambe kii saxda ahaa ayaa loo keenay. Hala qalo ee calooshiisa laga soo saaro ayuu dhahay. Way qaleen wayna ka soo saareen. Faalaloyaashii oo dhan way yaabeen. Nin faalkiisa calool dhexdeeda wax ka dhex arkayo ayay la fajaceen. Maalinkaas ayaa loo saxiixay Aw Aadan inuu yahay faaliye caalami ah. Maalmo kadib ayaa haddana waxaa la dhacay hanti badan oo uu boqorku leeyahay. Durbadiiba waxaa haddana loo yeeray faaliyaashii. Waa yimaadeen oo waxba way soo saari waayeen. Kadib Aw Aadan ayaa loo yeeray. Ileen waxba muusan aqoonine wuu isku dayay wuuna ku fashilmay. Boqorkii ayaa xanaaqay. Markaasuu dhahay Aw Aadan hantidii keen ma adiga ayaa xaday. Hal isbuuc ayaad haysataa, haddii kale qoorta ayaan kaa jarayaa. Aw Aadan oo cabsi daran ay hayso ayaa iska baxay. Islaantiisii baddaan gelise ayuu u tegay kuna dhahay war muufa ii dub waan baxayaaye oo boqorka ayaa ii hanjabaye. Xiddiga koowaad markuu soo baxo ii sheeg, kan labaad marka uu soo baxana ii sheeg, kan saddexaad marka uu soo baxana ii sheeg. Islaantiisii haye ayay ku tiri. Nimankii xaday hantida ayaa sheekaysteen oo dhaheen war nin Aw Aadan la dhaho oo faalkiisu khatar yahay ayaa jiree armuu naga warhayaa ee aan soo dhegaysano. Way soo baxeen meel gurigiisa u dhow ayay yimaadeen. Mid iyaga ka mid ayaa soo aaday guriga xaggiisa si uu waxuun u maqlo oo ku saabsan arrinkooda. Wuxuu ku soo beegmay xilligii uu xiddigii koowaad soo baxayay. Islaantii ayaa tiri midkii koowaad ayaa soo baxay. Wuu yaabay tuuggii oo wuu laabtay. Wuxuu yidhi waana laga warhayaa. Kii labaad ayaa soo baxay wuxuuna ku beegmay xiddigii labaad. Waxayna tiri kii labaadna wuu soo baxay isna waa laabtay. Wuxuu dhahay waana laga warhayaa. Kii saddexaad sidii oo kale ayaa ku dhacday. Waxay dhaheen Aw Aadan wuu naga warhayaaye aan u tagno. Aw Aadan oo inta muufadii jeebka ka buuxsaday gurigii ka soo dhaqaaqay doonayana inuu baxsado ayay ka daba tageen tuugadii hantidii ka dhacday boqorka. Waxayna ku dhaheen war Aw Aadanow hantidii waa tan ee boqorka naga badbaadi. Saas miya hayana keena ayuu ku yidhi. Way baxeen oo boqorkii ayay u tageen. Aw Aadan hantidii ayuu ku agtuuray boqorka. Boqorkiina wuu yaabay. Kadib wuxuu dhahay boqorkii maanta waxaa la qabanayaa tartan u dhexeeya faaliyaasha. Sanduuq ayuu wuxuu ku soo riday miro. Wuxuuna dhahay ha la sheego miraha waxa ay yihiin. Qof kasta wuu isku dayay. Waxbuu sheegay wayna noqon weyday. Waxay ku timid Aw Aadan. Wuxuu soo xasuustay xaaskiisii dhibkan gelisay. Wuxuuna dhahay alla canabeeyaa waana magaca xaaskiisa. Waaba loo sacbiyey oo meesha waxa ku jira waxay ahaayeen canab. Faaliyaashii waa yaabeen. Mid ka mid ah faaliyayaashii ayaa yidhi Aw Aadanow haddaad faal taqaan sanduuqan ayaan maraq u beddelayaa ee keen muufadii lagu cuni lahaa. Ka dhig bal aan aragnay ayuu ugu jawaabay. Markii laga dhigayna Aw Aadan ismaba dhibine oo muufadii uu jid marka ka dhiga rabay ayuuba jeebka kala soo baxay wuuna ku cunay. Meeshaas ayaana looga haray Aw Aadan oo bilad sharaf lagu siiyey. Khalaas sheekadii Aw Aadanna intaas ayay nooga dhan tahay saaxiibayaal. Aragtidaada maxay tahay xigmadda iyo casharka ku jira sheekadan? Si ay asxaabta kale uga faa'iidaystaanna muuqaalka inoo sheer gareeya. Maalin wanaagsan.